sidaan arkayno waxaa soo baxaysa in garabkii mucaaradka ahaa iyo midowga musharaxiinta iyo maamul goboleedyadii ay guul weyn ka gaareen guddoonkii golaha shacabka maadaama ay aada iyo aada u rajo weyn ka qabeen inay ku guuleystaan kursigaasi maadaama uu kursigaasi yahay halbowlaha guusha soo socota ee madaxtinimada. sida hadda inoo muuqata garabka mucaaradku waxay iskugu tageen inay xoogooda saaraan isla markaana codkooda siiyaan Sheekh Aadan Madoobe oo ahaa musharax ay wadatay mucaaradku maadaama isagu uu ka soo jeeday Koonfur Galbeed. Aadan Madoobe muxuu qaban karayaa maxaana laga sugayaa? Aadan Madoobe wuxuu qabanayaa kow inuu soo dedejiyo doorashada madaxtinimada Soomaaliya isla markaasna uu xooga saaro sidii ay meesha looga saari lahaa ama looga guuleysan lahaa madaxweynaha haatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida muuqata aqalka sare iyaguna la filayay in ay mucaaradku mar hore ay gacanta ku hayeen haddana waxaa u suurta gashay inay aqalka hoosena gacanta ku dhigaan taasoo keenaysa in mucaaradku ay awood u yeeshaan isla markaana codkooda meel isugu geeyaan. hadda musharaxa ay isleeyihiin waa uu ka soo gudbi karaa wareegga koowaad taasoo ka dhigan sida xalay u muuqatay oo ahayd in musharaxiintii la tartamayay labada afarta ahaa laba ka mid ah ay tanaasuleen kadibna ay codsadeen in xildhibaanadoodu ay codka si khaas ah isla markaana si toos ah ay u siiyaan Aadan Madoobe taasoo ka dhigan in mucaaradku ay hadda ay macnaha ay awoodda saarayaan sidii ay qof kaliya ay ku kalsoon yihiin u soo bixi lahaa isla markaana ay u tanaasuli lahaa intooda kale si codkooda u siiyaan taasoo muuqata in loolan adag uu kala kulmi doono madaxweynaha haatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadduu is soo sharaxo. sida hadda muuqata qayb ka mid ah xildhibaanadii Somaliland oo iyagu ahaa la lahaa waa muxaafid ayaa hadda waxaa u muuqata in iyagu ay noqdeen kuwo kala jabay oo qaybna ay raacday mucaaradka qaybta ugu badan ay raacday mucaaradka. sidoo kale xildhibaanadii Hirshabeelle oo iyagu la filayay inay muxaafid yihiin ayaa xalay toos isugu bedelay inay raacaan garabka mucaaradka. haddaba tan madaxtinimada soo socota insha Allah dhici doonta maxaa laga filan karayaa? Jeedal Media oo falanqeysay ayaa u aragtay in doorashadan ay tahay tii ugu adkeed abid ee Soomaaliya soo marta maadaama ay Soomaaliya hadda ay noqon doonto wixii ka dambeeya insha Allah laba garab oo axsaab ah oo isku tagi doono isla markaana ay loolan adag ka dhaxmari doonto. marka hadda fiirino madaxweyne Farmaajo xisbigiisa Nabad iyo Nolol waxa la filayaa maadaama musharaxoodii xildhibaan guddoonka ah xalay uu ahaa mursal isla markaana ay ka tanaasuleen isla markaana u wareejiyeen xasan waxa halkaa ka muuqata in ay muxaafidku xildhibaanadoodu ay aada u yaraadeen kadibna uu isku haleyn kari waaye xildhibaan mursal isla markaana uu sameeyey saadaalin ah inaanu meeshaasi codad fiican ka helayn. sidaa darteed marka waxaa caddaatay in ay madaxweyne Farmaajo iyo axsaabtiisuba xildhibaanadiisu isugu tagaan xildhibaanka xasan isla markaana uu codadkiisu markii hore aada u fiicnaa kadibna ay dhacday kala dhantaal isla markaana keentay in uu codadkii uu helay ka yar uu helo. marka maxaa laga filayaa middan soo socota ee musharaxnimada ee madaxtinimada isla markaana mucaaradku iyay isleeyihiin wuu idinkugu matali doonaa isla markaana codad badan heli doono. sida hadda muuqata anigu Jeedal Media ahaan ma filayno in mucaaradku ay ku heshiin doonaan cidda codadku isugu geey doonaan laakiin waxaa muuqata waa haddii la yaabo Yaasiinka la yiri waxaa dhici karaysa in mucaaradku ay noqdaan kuwo hal meel lagu isugu geysta isla markaana ka ay jecel yihiin ama ka ay neceb yihiin ba ay saaraan sidaas ay macnaha kaga guuleystaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.